بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن شاء الله تعالى وركوبا وحين كورن دون كلمة التوحيد أو كلمة النجاة أو طوق النجاة، كلمة بدبادة لا إله إلا الله محمد رسول الله. وأريغا أدونا اللغو بدباده، آخرنا اللغو بدباده، أما نرشد لما أنت بدباده دي كجرته. التوحيدكو لا إله إلا الله، الإله في اللغة هو المعبود. إله مركه هore waxa la yiraahdaa afka carbeed wixii la caabudo, ama xaq lagu caabudo ama baatil ha lagu caabudo. ولذلك بقى إلهي القرآن wuxuu ku leeyahay أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، ka waramaka ka yeeshay baa Ilaahay leeyay ilaahiisa ka dhigtay hawadiisa. yani hawa nafs ayaa macbuud u ah, naftiisu waxay doonto ayuunbuu sameeyaa, xalaal iyo xaaraanitoona ma kala jirto. wixii naftiisu jeceshahay buu ka dambeeyaa. markaynu nidhaahna markaa laa ilaaha ila allah, macnaheedu waa laa macbuuda bixaqin ila allah. cid xaq lagu caabudo oo cibaado mudataa ma jirto alle mooyaane subxaanahu wa tacaala. waa kelmadda lagu soo galo diinta, waa slogan ama waa shaciira ama waa tilmaamta islaamnimada baa cinwaanka u ah. laynama odhan dhaha laa rabba siwaah, laa khaaliqa ila allah, laa raasiqa ila allah, laa muxyiya ila allah. waana sax, laakiin waxaa laynidhi waxaad tidhaahdaan laa ilaaha ila allah. towxiidku culamada qaybisa, qayb waa saddex qaybood bay yidhaahdaan, qolana waa laba qaybood bay yidhahdaan, qolana waa ruuxuba waa hal qayba bay yidhaahdaan. mar waa saddex qaybood bay tilmaamaanoo towxiidka khaaliqnimada iyo rabbinimada iyo wixii la halmaala, asmaada ilaahay ee asmaa'il xusnaha ah, iyo towxiidka cibaadada ku saabsan ama towxiid aluluhiya. mar waxay dhahdaan waa laba uun, waa towxiid almacrifa iyo towxiid alqasd. ama si kale haddaanu nidhaahno towxiidku waa alcilmu billaahi waalcamalu lilah. ilaahay oo aad garatid rabbinimo iyo khaaliqnimo iyo asmaa'il xusniisa, ilaahay oo aad macrifo u yeelatid, iyo camalkaad qabanayso dara la noqda. iskale haddaynu idhaahno waa laba qaybood, waa qayb xagga rabbi ka timi oo ah inaad rumayso, sidaa u rumayso, iyo qayb adiga kaa tegayso la rabo inaad ilaahay u keli yeesho. qayb xagga rabbay ka imanaysaa oo waa ilaahay oo isu kaa sifaynaya, anaa rabbiya, anaa khaaliqa, anaa kana, anaa muxyiya, anaa mumiita, biasmaa'ihi wa sifaatihi alculaa, oo lagu leeyahay aamin. qaybna aday kaa tegaysaa oo waxa weeyaan wixii cibaado aad la imanayso isagoo qura ula kaalay, waa ficilkaagii adiga kaa tegayay, oo sida cibaadada, nadarka, rajaaga, khawfka, tawakulka, inaabada, waxa laaliya wixii ama acmaal alquluub ama acmaal aljawaarixi aday kaa tegayaan. qofka mu'minka markaa waxaa laga rabaa waxa weeyaan ifraad ullahi bilcibaada, ilaahay oo aad cibaadada ku kali yeesho, iyo walbaraa'ati min kulli macbuud, iyo wax kaloo la caabudo aad beri ka noqoto, aad ka dheeraato. ilaahay qur-aanka wuxuu inoo tilmaamayaa rususha waxaa loo soo diray rabbi cibaadadiisa inay dadka baraan. mas'alada ah ilaahay inuu khaaliqiya, inuu muxyiya, inuu mumiit yahay waa masaa'il fitriya. inta badan bini aadamku wuu rumaysnaa,
taariikhda aadanahana way yartay wax ka dooday dadkan iminka nasakhmay mooyaane oo iminka maskhi duwal wadaanba bini aadamka lagu hayaa oo qaabka waxbarasho ah oo ilxaadka iyo diin la'aanta faafiya laakiin bini aadamkii caadiga ee normalka ee cala alfitra ahaan jiray inta badan masalada muranba kagama jirin ilaahay iyo weynidiisa iyo khaaliqnimadiisa iyo ka laakiin masaa'ilka cibaadada iyo cidda loola qasdinaya inta badan qaldami jiray rusushu markaa cinwaan waxa u ah waxay bini aadamku qaldi jireen in loo saxo ayaa ah shaciirada ugu weyn ama calaamadda ugu weyn ilaahay wuxuu leeyahay وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون أديك هرتامان نصادر با إلهي نبي كولي عليه الصلاة والسلام رسول كاهر ريي ما إيمان إلى أي رسول والبوحان أسو وحيودي والله سوفري أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ورميد حق لغو عابدا مجرى أنيقا موياني يا أنوني عابدا إلهي قرآن كوحي نقول واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون هذه أنبياء دي كاسوه الرئيسي إيا رسوشي كاسوه الرئيسي بل ورئيسو وميوشره إذا أنكو صاد الرين إلهي غير كي لعابده إذا الدعوة دي أما ديمه أي لي مادين نبي دور هل دين باهد إن الدين عند الله الإسلام بوها دين لبعد ما شرته وحي الرسول يا النبي حق قال لك يمي وحي لها لما انتود إلهي عابدا مركب بني آدمكم مسألة ذا كوى عذاب الرسول عسوبة لسودر يا أوله إلهي عابدا هذا وحي لنا دينته أما التوحيد كالرسول شلو سودي بي أما بلشوينكم مركب وعدانا انحرافان أول طريق لوغيره أما أول مقامات من مقامات السلوك شتك كواد اللقات سيي واكا لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره نبي نوح بانو صادر روتلكي وصادر ربا إلهي لي وحانوا لها يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ورأى لك لي عابدا عدل الله ما نيو عبادة لو ذاك ما شرته نبي الله هود اعبدوا الله ما لكم من إله غيره في سورة الأعراف نبي الله صالح اعبدوا الله ما لكم من إله غيره نبي الله شعيب اعبدوا الله ما لكم من إله غيره في سورة الأعراف أنبياء إلهي تحية ومدوا لبوحوا وضائي تحي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره لك لي عابدا عد عبادة لو ذاتي يا مجرته إلهنا القرآن كوحو كنت المامة في سورة النحل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وحنو صادر أمت كستو الدنيا جوكتي رسول بانو صادر ربا إلهي لي رسول إلهي صادر وابنايين بدنا والله ينو شيغي بدنا اللي ينو شيغي قرآنكو دوري الله واتنو بك ورميا انت كلا لك ما ورمين لكن إلهي وحو شيغي أمد الدنيا دان بجرين لا الرسول كيدا ويمي قرآنكو سير دوري الله تمو مقعابا إلهينا وحو قرآنكو تلمامي منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص قارا أنو كاغا ورنين واجران رسول شقارا أنو كاغا ورنين واجران لكن كوي لغا ورمي إيا كوان لغا ورمي بهل وحن بنو سودي بيبا إلهي لي ولقد بعثنا في كل أمة دمان تيت رسول بانو صدر بيبا إلهي لي رسول كاس أمد كستوي ممحوة دي اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت إلهي كاليجي عابدا والطاغوت ككفو هذا إلهي كاليجي عابدا والطاغوت كفو هذا وحي الرسول يمي يوردمي يوحي النبي يمي يوردمي ويدا سيودي نبي محمد عليه الصلاة والسلام اسنا تاسبودي يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا صحابتي أودري يقولك كلا أودري
وحاو كدري معاذ بن جبل مركو نبي يمن دري وحولي إنك تأتي قوما أهل كتاب وحدو تجدون تأدول أهل كتابة فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وغير كلمة توحيدك هداي تاكا أقبلان وشيك شان صلاة دودو لغولة يهبيني مالنتي هداي تاكا أقبلان دبتنا أركانتي بوتري هدبا أيها الأحبة كلمة التوحيد وهو حين نبي يوردن لغو صادري إسلام مركانا والنعمة وقوين إلهين وقو قلت شاقنا أيوه سؤال شو حيتاي مركا وابن آدم كوردن من مشكلة قرى وذا هيستي اللي الرسول شوح الله صادر مشاكل كدوني دين يحللان الرسول شوح يوي مادين dhibaatooyin kii dunida yaalay inay wax ka qabtaan wax ka bedelaan aadanuhu sidoo badbaadi lahaa ay u tilmaamaan hadana quraanku wuxuu tilmaamayaa mid walba waxa loo soo dhibay kow ubudullaha ma lakum min ilahin ghayru bal ilahi subhanahu wa ta'ala suuradan culimada qaar suuratu ni'amka ku tilmaamaan suuratu nahl suurada ilahi wuxuu kaga waramay wuxuu nimcayn ugu galadaystay nimcooyin aad u tiro badan bay suuradu tirinaysaa oo xoolaha leh oo caanaha leh oo malabka leh oo cirkiga dhulka ilaahay loo sakhiray leh oo badaha leh waxa dunida ilaahay abuuray oo dhan buu inoogu mana sheeganayaa la tirinaya laakiin suurada nicmada koowaad ee suurada ilaahay uu ku sheegay waxa weeyaan yunazzilu almalaa'ikata birruuhi min amrihi ala man yashaa'u min cibaadihi أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون نعمة كواد يمركو نعمة كان للشيغان يو شاكتي وحويان وحي بان كسود دجي رصوشة للي يددك ودقوا الشيغا أنه لا إله إلا أنا فاتقون أنا قولي إن أنا هاي محي إله حق لغو عابده أنا قولي إن أنا هاي إله حق لغو عابده وحي إلهي نوت المامية فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى نينك وحي إلهي غير كي قالوا بين عابده الله الرماية كاسي حرقي أتكابو قبصدي با إلهي لي حرق أدك أنقو استلهيم بو قبصدي هذا با درسيغيغو wuxuu ku saabsiisan yahay mawduuca kan laba qaybood oo kamid ah kaasi waa mawduuca caamkiisi kalimatu tawxiid rususha lagu soo diro su'aal baan isweydiinaynaa ah umamku dhibaatooyin badan bay qabeen why looga bilaabo tawxiidka dhibaatooyin badan baa jira dhibaatooyin akhlaaqiya jiray qaarkood dhibaatooyin siyaasiya jiray qaarkood dhibaatooyin dhaqaalaha jiray qaarkood dhibaatooyin xadaaraad ku saabsan baa jiray umamkii rususha loo soo diray dad hal mashkiladoo quri wada haysata ma ahayn waxay ahayn dad mashaakil tiro badan oo kala noocay haysteen qur-aankuna wuxuu tilmaamayaa qolo walba mashkiladii haysatay wax ka mid ah maalan reer banu israa'iil dad la gumaystay ahaayeen fircawnna nin wax gumaysanayuu ahaa مشاكل بوليتيكال با يالي مشكلة سياسية با تالي نبي موسى waxa loo soo diray dadkan inuu xoreeyo fircoon laga xoreeyo ومع ذلك waxa la yiri waxaad ka bilowdaa ubudu allah ma lakum min ilahin ghayru nabiyullahi hud ya aad qoomamkaas reer aad نمن كبري وحضارات له وأتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين إلهي وحكا ورميا نعمة لسي وبورها قرية كقري جرين وملك استا علامته يمكن سو وضنضا يوحاني ساينس علامة باريس برتنير باوتاغن مريكان توجكا وتاغن قلبا علامات سمايستا كون waxa la leeyahay atabnuna bikulli ri'in ayatan ta'bathun meel kastaba calaamad ba ka taagteen ciyaar iyo dheel idinka
رسول الله لو صادر قار مشكلة دقالة هيستي نبي شعيب يقوم كيسي مالك استوى شعيب كور رميه ولا تبخسوا الناس أشياءهم أوفوا الكيل والميزان بالغ والرمية بشكل دقالة جري هدنا وراكو حتى المامي النبي والبوح عليه هلك كبلو اعبدوا الله ما لكم من إله غير ما السر في نظري والله أعلم لما مسأله هو وين بجره وهذا يا صحة وحكذا بيورد ما يا صحية مسألة كواد ومحي كو وحلق ورمي يا إلهي حقي سين للصغة دوني داي إنه ما أنت تشوفنا وحمقاشان حقوق ده بني آدمك حقوق ده هويوينك حقوق ده عرورته حقوق ده محل ده حيوانك حقوق بدن الله قهض ليه حق وضع مضمبة جرا وحاصودا حق باجرا هدو يسقو السقمه وحكدن بيورد ما يسقميان وإلهي حقيس سبحانه وتعالى إلهي وحلي أنا إذن أبوري كون كان دمانتين أنا أبوري وحا عنيساني وحا عبسان بانا له دريدن أردن أنا اسكاله حقي وقود هدا فلسان ويدين معيني يا وليبا إلهي حقي سوا محي مرك إلهي سبحانه وتعالى حقي سوحي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون إلهي حقي سوحويا عبادة اللوغار يالو إن أن عدل دينع وضنون كاليجي إفراد الله بالعبادة ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حديث كالصحيحين ككوية الله saxaabigii dhalinyarada ahay Mucaad ibn Jabal loo oran jiray ayaa nabiga dameer fuushan la soo raacay dabeetana cabaar markii ay socdeen ayuu wuxuu yiri ya Mucaad ibn Jabal riwaayada Bukhari sheegayso war Mucaadkiina Jabal ahaayo saxaabigu walaha hadlay nabiga wuxuu leeyahay labbayk rasuul Allah wa sa'dayk kuma qalo ku ajiiba ilaahi rasuulkiisiyo وحبب مشيقي النبي وصعده هذا مدة ساعة مركي إلا السعودي أيو نبي هدنا يري يا معاذ بن جبل معاذ كي إن الجبل هايو صحابي وحده له رسول كيسي وكو أجيبه وكو وأطيعي أحب النبي ومشيقين والله صعدي دمركي إلا السعودي وهدنا النبي يقول يا معاذ بن جبل سيدي سلك بالسحاب يقول رواية كقاركود أفر شربة المامية هاي علماء يراهدان ومن أدوات التنبيه قف كم مركه ربطه إنه ودا دغ نقضه هذا الكريم أنا si fudud ku dhaafin waxa la isticmaalaa wax qofka lagu soo jeediyo inaad qofka u yeedho hee markuu yiraahdo hadana aad waxba u sheegin hadana u yeedho hee markuu yiraahdo waxba marka dambe qof wuxuu waxaan lagu sheegaya maxay tahay أخيرا بو النبي عليه الصلاة والسلام هل تدري ما حق الله على عباده ما قرنيسا حق ألا الدومدي سكولي ما حق الله على عباده إلهي حق الدومه سكولي ما تقارنا أبو كيري صحابة عادة دوحة أهيد نبي عليه الصلاة والسلام إنك حشودان وحتى وحي قرنيان هدو ويديو الله ورسوله أعلم بيورجلين يقول راديني الزيادة للعلم والله يا النبي وانت يقرنيان وحكا بضنبا إنه شاقه دبيتنا النبي وحكو يري إلهي حقيسه وأدومها كله وحويان حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا إن يعبدان السقة عدنا أنا كل ما نينين كالجيني عبادة ولي مادان عدنا أنا كل مانين مدمر كانوا السعني أيها هذا نوح النبي يقول وان معاذ بن جبل هابان لبويري ونبويري أضامه يو حقي مركا لين وتغانا حقوق الناس وحيتمادا بعد حق الله سبحانه وتعالى هدي إلهي حقي سلا الصغو وحي كدن بيا حق بني آدم قبل ما هذا حقوق بني آدم كما تغانا أبو نبي بويري الله ورسوله أعلم بويري
حق الله حق العباد على الله ألا يعذبهم النبي عليه الضوامهنا هذا بحق إلهي سوصاري وحويان هذا صداقكم منادان إن أنا العذاب إن أنا يدي بارك هذا أيها الأحبة رسول شوحي مسألة نقبل بيان ومسألة كوادة هذا يد الصغن توحى كلا صغمية إلهي حقوق دي سهدي الله أقبله داد منس ورك إلهي بالله أقبله وياه ورك إلهي هداد ياشنه عيد والبا إلهي ساقا حق يسسيه حق الرقا حق الدمر كي حق بني آدم كي حق حولا يملو ميان مركا حقوق دانور دميوان محي وفي شرع الله بيكو تعالى إذن أول رسول شوحك كوادا لغو صادر محي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وما نهدو يهي إن إلهي عبادة لوكالية له وسكلا هذا ينونا ما نهدو يهي إن حق الله السوء وكلمة إسلام كوكو بلابه ومفتاح دار تشنات ووين آخره مركا تكتنا لقويدين دونه وإلهي قرآن كوحو كتل إلهي قرآن كوحو كتل المامية سؤالا لين ويدين دونه كم تهي ماذا كنتم تعبدون أدوك مركا تشوكتين واربحا عابدوا جرتين وماذا أجبتم المرسلين رسول شي محاوق جوابتين ولا إله إلا الله محمد رسول الله أيها السؤال اللي نويدين أيوه هذا اعبدوا الله ما لكم من إله غير وحايت الماميسا وغهرين حق الله إلا الصغوه حق ربي مركو السقما با حقوق دا مخلوقاتك أي كدب السقما علماء واحد شيء اللي بعد بهجره ترتقي إنه والله ما قدبوك كوبي شيء قال بعد دوام حي مسألة تانية ومفتاح بني آدم قال له غفره قرقو الصومال هاي الباب لقى قاله دات فرطه وفدودية وحكاة مبينة قرقو صعطه هذا استرى هذا سيد دربيك كقال وواحدك إنسانكو انحرافات بدن بوقلاه قلوع سن بدن با نولشا كو يمادا قلوع سياسيد با يمادا قلوع نقالا يمادا قلوع اخلاقيد با يمادا قلوع يترى بدن با نولشا قلا سيدين لو صحا قلوع مركا dadka aan waxyiga xambaarsanayni waxa isku dayaan mashaakilka inay mid u waajahaan laakiin markay mid hagaajiyaan badhanka kale ka furantaa waana aadanuhu tajaaribta wada nooca marka dhan laga bustabusteeya laga karkaraba meel kale ka dalooshantaa haddaba furu leeyahay bini aadamku haddii lagu furo mashaakilkiisoo dhan si fudud loo islaaxin karo waxay doontaba mashaakilkaasi haata ka dambeeya mashaakil dhaqaale waa suurtagal mashaakil siyaasiya waa suurtagal mashaakil ijtimaaciya waa suurtagal mashaakil akhlaaqiya waa suurtagal mashaakil xadaariya waa suurtagal ولذلك أيها وحين لنا أستانتا موقتا وحيتهاي نبيادو أصليا يرسوش نولشو مركي مقدقة قشي مدوباتا إلهي صادرة إن دادك ربها صحدا ديب لوغو سوعليو إذا الرسوشو وقاددي وهقاندي آدنها جدك توسان تسيي مركي عقيدة حماته أيها وحا كرنش عقيدة داسي انحرافات رقم محومك عليه عقيدة توسن السياسات غلطان مردشو فرعون وحا سياسته غلطانتي وقميسي قبلامن بركي عقيدته غلطانتي قوم اللوط وحا فاحشته وبحين بركي عقيدته غلطانتي غير شعيب وحا مشكلته وبحين يدقال حمكو يماد بركي عقيدته حماتي ومامكو بركي عقائد لونتو توحيدكو مركو اللومو أيها waxa ka dhasha inxiraafaat bashariya inxiraafaadka bashariga ahi baabku doonu noqon kara baab siyaasadeed buu noqon kara baab akhlaaqeed buu noqon kara baab dhaqan buu wuxuu doonu soo bixi kara haddaad rabto inaad saxdo markaa inxiraafkaasi kow madaxa laga saxaa waxa laga yaabaa dadku inay yidhaahdaan aan idhaahdo caamada af ingiriisiga ku hadasha
amada af ingiriisi ku hadasha waxaan uga dan leeyahay waa dadka culumta kale barta ee diinka ilaahayna wax ka aqoonin qofkani waxbuu garanayaa laakiin ma garanayo wixii ugu korreeyey waa ilaahay diintiisii idan socially buu bartay wuxuu rabaa bulshada inuu hagaajiyo politics buu bartay wuxuu rabaa siyaasadda inuu hagaajiyo dhaqaalu bartay wuxuu rabaa dhaqaale inuu hagaajiyo waxbuu xagga ka hagaajinaya xaggan kalunbay kasii daloshamaysaa siyaasaadka qarbiga iyo waska iyo iiska iyo dunidoo dhan ka jira waxaan baa la islaaxinayaa meel kale ka dilaacaysa tan baa la islaaxinayaa dhan kale ka dilaacaysa waay waxaan leenahay furaha aadanaha halkii ugu fududayd baan laga marin furaha aadanaha haddii halka ugu fudud laga maro waxaan oo dhammi way islaaxayaan ولذلك نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام وحيمي عرب وبابا عرب ودول كودي لبدا قيبودا وفي عن دول بيروت كودي لبدا دولة دودا وحوق بدن هيسطو عرب دول بيروت كودو وعراق لبدا دوبية شام يا انتا سيهيت يا مصر يا انتا وبيا داله ايوه انتا هوسي يمن labada qayboodba Yemen waxa haysta Persia Iran ba haysata Iraq qaybaheeda badan Iran ba haysata Sham iyo Masar iyo inta tanna Romanska haysta idan laba dawladood waaweyn ma kala raacsan intan dhaxay saxaaruhuna wadad islaaya oo burbursan oo nolol adag oo dhiban ku jira Ilaahay Nabi Muhammad soo diray alayhi salaatu wasalaam inuu dunida islaaxiyo marka la eego cadaaladdu waxay gaarsiisaneen heer oo ku gabayagoodu yiraahdo ninkii aan safetyisa ku ilaashan darkiisa waa laga duminayaa darka biyaha waa laga duminayaa haddaan safetada ku ilaalinaynin marka nin xoog badan un baa wax dumarka iyo carruurta iyo aqoonta iyo waxaas xuquuq ma leh carruurta iyagoo nool baaba dumarka la xabaal nololiya waaba la aasaa bulshadu waa tabaqaad dhaqaalaha in yar baa ribo ku haysata bulshada noocaas iyo markii la rabay in la islaaxiyo lama odhanin qowmiye carbeed samee waddanka carbeed xorriyadu raadi maamul u samee meel kale ilaahay yidhi ka bilow waxaasoo mashaakila meeshu waa wada mushkilad halkii la taabtaaba laakiin waxaasoo mashaakila waxaa la yidhi waxaad ka bilowdaa qadiyatu tawxiid قولوا لا إله إلا الله تفلحوا بالين كله قولوا لا إله إلا الله تفلحوا لا إله إلا الله ده ودرنا هس أفهم ما هي وحي شيء يسوع كل نغمة واللي ما نساني ولذلك بوحي لنا أنبياء دي إلى هاي صوت دري قرآن كجو الرمية يدو مشاكل كي بلشات كود الله ينقو الرمي أيها دنا قرآن كو حكم بلا يا النبي ولبين لها اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إلهي عابدة ملهدين عدكالي هذا وحي لنا أمراض حنونة بلشادة كلها سياسي اقتصادي حضاري أخلاقي اجتماعي لما أنت تسكو صدر مش يكبلها مسواكا نبي محمد نقول لا إله إلا الله تفلح بقبائلك كل وريقي مركي حجك السولي مادان حديثنا السائما رجيني نوريني شغل الباننا إرواقك كو تصحيحنا قولوا لا إله إلا الله تفلحوا بالنبي لها ولا إله إلا الله ده وقول يسني ساده وراسا أبي الله بي الشياطين كلا ندى بس عطوا إليه وأنه والنا وحباك دقي سنين كو صحابة دري إنك تأتي قوما على كتاب بدو تقي سابوا للدولة ما حي كله فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله والله بالعب وأن رسول الله وغير كلمة التوحيد قال لا إله إلا الله إذن أيها الأحبة وحين لا نهي تريد أن هدينا ربنا إنه نصلحنا إصلاح سوح الدورة بها هذا عرور بين ربنا إنه نصلحنا ددوا وين بين ربنا إنه نصلحنا نقال بربراي بين ربنا إنه هجاتشنا بلشبا بعض بين ربنا إنه هجاتشنا سياسة لنطي بين ربنا إنه هجاتشنا حتى هدي أي شرطة ودوين لمرة
وفر سيريا حتى هدي جرتو ودوح لغو إصلاحين كرا أقصر طريق وددا وقابني واتن even though هدي ندانو هدي بقى جرتو ودوين وحلوها كاكاتشي كارو تيبا أدى شورت السوي بين سويدي تيبا وقابن سألة النبي قمركو مرأي الصحابة كل ربيين ينقادين التابعين كل ربيين around 50 years bay dunida dhanka kale ba u rogeen intay Soomaalidu xornimada hadda sheeganayso in ka yar bay min China agagaarkiisa ilaa Spain agagaarkiisa ku islaaxiyeen dunida oo dhan lagu hagaajiyay ma aha jasiiratul arab oo qura caalamkii la yaqaanay ba waagaas dadku deganaa ayaa lagu hagaajiyay maxaa yaa hagaajiyay dad kalimatu tawxiid sida Persia Iran markay dagaaladu socdeen ayay yiraahdeen cid noo soo dir balan wada hadallo ciidanka muslimiinta Sa'd ibn Abi Waqqas ba hogaaminaya jarankii Persia Rustam wuxuu leeyahay waxaan rabnaa bal wada hadal saddex nin oo kala dambeeya kulba nin loo diray ragii loo diray waxa kamid ah Rabi'i ibn Amir ربيع بن عامر والصحابي انت اصدقال كسو جرى اسكر رفاسه وتغي ور ما دولكي نيدنكا كاني سؤاشا ابو ويدي ما الذي جاء بكم يوحو سليني ما كان مالا ودقاله دون iyo meel saxara bay ka yimaadeen oo engegan aan waxba oolin mala deeun haday dhaqaale helaan way iska tagi lahaayeen marka wuxuu rabaa inuu u sheego inuu u soo bandhigo in adduun idin siinay meeshin iskaga noqda وحول ياي وعربطان وهو جوابي معي الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده إلهي وحن نوص هدري دادك أدون صنيانا نكسر دادك إلهي أدون موغدقنا قال لك هلقين لعابده إنا نكسر نبي من جور الأديان إلى عدل الإسلام إنا نكسر من ضيق الدنيا إلى سعتها dunida cidhiidhigeeda inaan ka saaro oo balceeda inuu tusnabo leey hadda waa nimankan waxba haysan saxara ka yimi ayaa qoladii xoolaha haysatay waxay ku leeyihiin waxaan u soconaa cidhiidhiga adduun inaan ka saaro idan dunida waqti yar مشاكل سياسية هي كيدي اقتصادية هي كيدي أخلاقية هي كيدي إنسانية هي كيدي اجتماعي وحضورة ما نقضي مشاكل كيا اللي وقت يربى لغو حاجاتي ساو قالوا حلانا حتى هداي ودكر والله مري كرابة شرتو even though هداي شرتو تقول له الشورت السويقة هو كان حلقة بدأتكم إلى هذا ودك يبقى لكم مري ودادتنا لا إله إلا الله أنهم بيولي وضعن دادك إنما سياسة حماتي كان حماتي إذن ولي لا إله إلا الله يسلا دالتك كذا وضعن يعني وجه لي هلكي ودن بيسي وهي وقف قران لا رسوشي إلهي بصدري وحي دوني دكو هجاجسي إلهي دوني مدوب الرسول صدري رسوشي الله صدري وحي يكو هجاجسي بقران كري لاي إذا وحين لا نهي لا إله إلا الله وكلمة النجاة أدونك أنت اللي تشوغا لغو بدبادية أدونك أنت اللي تشوغا وكلمة لغو بدبادية حتى أن الله شمرك عريري قشو إلهي وحينات المامي النبي كاللون لقي صوماها قرآنكم أيضا رك وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه نبي كاللون لقي هبين مدو كجرا بد مدو كسيجرا علول كاللون كسيجرا مش أدركسن كجرا فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين هل كاسوك قد واقبا إلهي لي لا إله إلا أنت كلمة التوحيد هي التصبيح سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين هل كاسو اعتراف لي مولي هاي وحكستو يقول دعي إله وأنا كمسؤولة أدو ضدك مدو المدين إن الله ليس بظلام للعبيد اعترف بتقصيري هل كاسو لي وحا مشاكل هاي استا ومني حق يقوم بكي مادين إله ودقوا بريبات كطاي وأنا كنت توحيد سنية إلهي نوح قرآن كليه فاستجبنا له
ونجيناه من الغم وكا أقبل لي إلهي لي يدي ساسي بريدي ساسي مرغدين وكسر ريبا إلهي لي وما وحي كو أكتهاي نبي يونس وقرأ مايا إلهي حولي وانا قاعدة وكذلك ننجي المؤمنين باكو حكت وكذلك ننجي المؤمنين sidaas baanan cidii yeesha ee mu'mina u badbaadinaya baa Ilaahay leeyahay cidii tawxiidkiisu dhab ka noqoto saas u badbaadaya idan waxa leenahay adduunka haddaynu rabno inaynu badbaadino kelmadan iyo waxay sheegaysaa inaan si fiican u dhuuxin oo si fiican u fahmine iyaday badbaadadu ku jirtaa iyo wixii ka farcama adduunka iyada lagu badbaadaya aakhirana dee axaadiista iyo qur-aankaba waa aragteen naarta waxa lagaga badbaadaa inuu yahay kelimatu tawxiid jannada waxa lagu galaanaa inuu yahay maxay kelimatu tawxiid xadiisu lbataaqa xadiidkii sheegayey aakhira in nin lasoo taagayo dunuub badan geystay dabeetana sijillaad 99 sijillan baa la keenayaa 99 fayl buug baa loo keenaya oo dunuub ku qorantay oo la leeyahay kan ma samayso kan ma samayso kan ma samayso kan ma samayso oo qiranaya oo la leeyahay wax xasan oo aad leedahay aanu ka qarinay miyaa jira yaa rabbi ma yabuulay dabeetana akhira waxa la oranayaa mid baanu ku haynaa xasano inta ba ku xog badan baanu ku haynaa bataaqa la keenaya bataaqada waa kaad kuwan waa sijillaad kana waa bataaqa kaad yar ayaa la keenaya kaadka waxa ugu qoran kelimatu tawxiidkiisi laakiin waa tawxiid aan afka ahayn dhab ah tawxiid aan dheeldheel ahayn waayo dadka tawxiidka la yimiba qaar bay nusuustu sheegaysaa la cadaabi doono oo dambiilayaala oo cadaabka marka lagaga soo gooyo kadib laga soo saari doono oo akhiiran ku dambayn doona maxay jannada xadiisul jahannamiyiin ku way sheegaysay ahlu macaasiga qayb ka mid ah tawxiidkooda ayaa rifan laakiin dadka tawxiidkooda uu adag yahay maqaam sare uu joogo iimaankoodu qanjaha joogo halkii Soomaalida rabbi siday u rumaysayeen ay xoogan tahay kuwaasi tawxiidkoodu uu badbaadinaya walidaalika bataaqadaas la keenaya dabeetana miisaanka la saaraya 99 kan sijilliba iyada ka xoog badanaysa 99 kaba tamba ka cuslaanaysa idan ayuha alahibba darsigan aan maanta sheegaya wuxuu yahay isagoo kooban ucbudu allaha maa lakum min ilaahin ghayruh waa waxa adduunkan lagu islaaxiyo waana miftaaxa dacwatu lambiyaa waana xaqa koowaad oo ilaahay xaqiisa in la sugo ilaahay xuquuqdiisa markaynu sugno gargaarkiisa aynu helayna وانا فرها قفك بني آدم كاين عقل جيس لفره وحا كفضت إن قلبي جيس لفره بني آدم كاتو قلبي جيس فرمه وانا ماشي إيمانكو قاله توحيدكو دقو صحابة يقو قالا وفق وطرقصان أيا إيمانكو قالي دبتنا وانا يدي تقريبا نولشو دس بدشي everything has changed وحولي بويس بدلين ونرشودا كامدي waxay isku bedeleen in kelmadan qalbigooda gashay ayaa wax waliba isbedeleen idan hadu tawxiidku dadka qulubtooda si fiican u galo oo u barax tirmo waynu shawaa'ibta qashinka ka reebno oo tawxiid saafiya oo kii la rabay la nimaadno hadduu yahay tawakkulka iyo inaabada iyo nadarka iyo wax kasta aynu ilaahay acmaasheena u kala yeelo wuxuu inoo ballan qaadayaa rabbi subxaanahu wa tacaala adduunkana inaynu ku liibaani doonno aakhirana inaynu ku badbaadi doonno idan waxaynu u baahannahay faclam annahu laa ilaaha ila allah nabi maxamed oo isaga waxyi ugu soo degaya calayhi salaatu wasalaam ayaa ilaahay wuxuu ku yidhi faclam aqoon u yeelo ogow tawxiidkaasi barasho u baahan yahay
iyo taxqiijin cilmi u baahan yahay inta badan dadku waxay bartaan weysada waxa buriya dadku wada garanaya weysada waxa buriya Soomaa laakiin laa ilaaha illa allah waxa buriya yaa garanaya bas diinta laga baxun baynu naqaanaa saxama laa ilaaha illa allah goorma ka jabaysaa hadda diinta ka baxdo haddii kale se waxaynu haysanaa label mar haddii la isa suro aan dib u fuqin inuu yahay ku soo dhaanaya wax badan baa buriya oo dadku iska fudaydsado sameynaya idan waxaynu u baahanay tawxiidkeena si inaynu xaqiijino oo si dhaba u baranno ilaahayna wuxuu inoo ballan qaadaya adduunkeenuna inuu islaaxayo adduunkeenana inuu joognaa inuu islaaxayo aakhiradeenuna inay islaaxayso صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين